subax wanaagsan daawadayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka qodobada xiisaha badan ee warkaad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya dowladda Itoobiya oo qarka u saaran in xiriirka ay si toos ah ugu jirto dowladda Soomaaliya Xasan Sheikh oo loo diiday safar uu ku tagi lahaa Addis Ababa hadaba maxay tahay sababta warkaad ku daawan doontaan xaaladda gobolka oo aad u qasan Soomaaliya Kenya iyo Djibouti oo dhinac ah iyo sidoo kale Itoobiya iyo Eritrea oo dhinaca kale ka soo jeestay waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda guud ee Soomaaliya iyo go'aanada khaldan ee uu qaatay madaxweyne Xasan Sheikh kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed qaarkood ay ku tilmaameen mid qarar iska tuurnimo ah qodobadaas aad daawan doontaan rukumadhanka si aad doonshid wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka iyo sidoo kale arrimaha caalamka oo xaqiiqda ku saleysan aan ku bilaabay qodobka ugu weyn ee saakay siyaabo kala duwan ayaa waxa loo fasirtay go'aan ka soo baxay dowladda Itoobiya kaas oo ay ku hor istaagtay safar uu ku tagi lahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud Addis Ababa Itoobiya ayaa si weyn waxa ay uga hortimid go'aanadii u dambeeyay ee uu qaatay madaxweyne Xasan Sheikh kuwaas oo sida uu sheegay Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha waa Itoobiya kuwa aadan u ahayn dowladda Soomaaliya safar uu ku tagi lahaa madaxweyne Xasan Sheikh Addis Ababa ayaa gabi ahaanba ay joojisay dowladda Itoobiya horeyna jadwalka fila Soomaaliya waxay ugu sheegeen in madaxweynaha markii uu ka yimaado dalka Djibouti uu ku sugan yahay in si toos ah uu u duuli doono Itoobiya xaaladda labada dal ayaa hadda meeshii ugu xumeyd gaartay waxaana la ogsoon yahay in Itoobiya markiiba ay shaqadeeda bilowday markii dhawaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani lagu dhex arkay Addis Ababa iyo isagoo sawir ku soo galay calanka dowladda Itoobiya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa tan iyo markii uu ku fariistay kursiga fila Soomaaliya waxa uu maalmo kooban ku bixiyay ilaa iyo 4 safar ka badan kuwaas oo ay la yaabeen dadka Soomaaliyeed oo fajiciisa ay ku noqotay in madaxweynaha isagoo xitaa 100 maalmood aan u dhamaan aan la soo dhisin xukuumad cusub in intaas oo safara qarash fara badan uu ku bixiyo inkastoo dowladda Itoobiya ay xor u tahay siyaasadeeda arrimaha dibadda haddana dhaqanka uu keenay madaxweyne Xasan Sheikh maalmihii u dambeeyay ayaa si weyn u careysiisay Abiy Ahmed taasoo noqotay mid uu jeclaysan waayay sidoo kale go'aan degdeg uu ku qaatay inuu ka joojiyo safarkii Xasan Sheikh Maxamuud uu ka tagi lahaa dalka Itoobiya Abiy ayaa aad waxa uu u carooday go'aankii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud heshiiska uu kula gaaray madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta kaas oo ahaa in si degdeg ah qaadka Kenya lagu geeyo Muqdisho halka kalluun saafi ahna Soomaaliya ay geyn doonto Nairobi inkastoo dowladda Kenya ay kamid tahay dowladaha Afrikaanka ah kuwada ugu dhoofinta badan dhanka kalluunka oo wax kalluun aysan waqtigan u baahnayn haddana heshiiskaas oo siyaasiyiinta qaar ay ku tilmaameen mid marin habaabin ah waxa aad ugu xumaaday Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintaas ku tilmaamay mid dulinimo ah oo madaxweyne Xasan Sheikh uu hoos u dhigay qiimihii sharafkii iyo sidoo kale dowladnimadii Soomaaliya ee 5 sano ee la soo dhaafay si weyn loo dhisayay intaasi kadib madaxweyne Xasan Sheikh ayaa waxa uu socdaal aan hore loo sii shaacin ku tagay dowladda Djibouti oo hore aan u ogeyn in khilaaf u dhexmaray dowladdii ka horeysay Xasan Sheikh Maxamuud ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Sheikh ayaa halkaas ku tagay safarkaas waxa ayna ku wada gaayeen heshiis aan dan u ahayn dadka Soomaaliyeed dowladda Itoobiya oo marka hore u arkaysay Xasan Sheikh mid hore u sii wadi doono horumarkii dowladnimada Soomaaliya waxay go'aansatay in gabi ahaanba ay kansasho safar uu ku tagi lahaa Addis Ababa Xasan Sheikh halkaas oo kula kulmi lahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed arrinta ayaa si weyn cirka u sii gashay markii Xasan Sheikh Maxamuud uu isku dayay inuu ku adkaysto inuu la kulmo Abiy Ahmed si uu uga dhaadhiciyo kulamadii uu la qaatay Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale safarkii Imaaraadka uu ku tagay iyo kii kale ee Djibouti uu ku tagay laakiin dhanka kale Abiy Ahmed ayaa si weyn waxa uu xumaaday markii madaxweyne Xasan Sheikh uu kala xigsaday dowladaha Itoobiya iyo Masar oo colaad weyn ay dhex taalo Masar iyo Itoobiya waxa ka dhaxeeya dagaal khadiyad ah kaas oo ku saleysan wabiga weyn ee Niil Xasan Sheikh qayb weyn ay ku tahay inuu kala xigsado labada dowladood ee Afrikaanka ah dariskana la ah gaar ahaan dowladda dariska dhow la ah ee Itoobiya inuu ka xigsado dowladda Masar oo dalal fara badan ay u dhaxeeyaan sidaasi waxa qaba mid kamid ah siyaasiyiinta sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqa fila Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud xogaha weelay dhanka wararka waxay sheegayaan in waqtigan dowladda Itoobiya ay quudareynayso in gabi ahaanba safiirkeeda ay ka wadato Soomaaliya halka safiirka Soomaaliya u fadhiyo Itoobiyana ay soo ceyriso oo dabada ay ka soo harantiso maadaama madaxweyne Xasan Sheikh uu ku dhaqaaqay talaabooyin uusan jeclaysan Abiy Ahmed
haddii ay arrintaasi dhacdo waxay dhibaato ku noqon doontaa dad fara badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo ku dhaqan Itoobiya gaar ahaan Addis Ababa waxayna noqon doontaa in labada dal ay is ugaarsadaan ma jiro dad fara badan oo Itoobiyaan ah oo ku dhex nool dadka Soomaaliyeed gaar ahaan marka loo fiiriyo caasimadda Muqdisho Addis Ababa waxaa ku dhaqan dad fara badan oo Soomaaliyeed qaar ayaa arday ah halka kuwa kalena ay ku ganacsan halkaas kuwa kalena ay safar ku maraan waxaan arrinta ay noqon doontaa in albaabada laga xirto dadka Soomaaliyeed haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu ka garaabi waayo ficiladii uu ku sameeyay Kenya oo heshiis uu la gaaray iyo sidoo kale xiisashadii uu xigsaday Masar sidaas waxa yiri professor la hadlay dhanka wararka dhanka kalena xog culus oo aan ka helnay gudaha kooxda Damul Jadiid waxa ay tilmaamaysaa in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn tan iyo markii xilka loo magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gaar ahaan Xasan Sheekh waxa uu khiyaano weyn ku sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ballanqaadyo waaweyn uu ka qaaday habeenkii doorashada habeenkii ka horreeyay Roble ayaa waxa uu la kulmay Xasan Sheekh kaas oo ballan ay kala galeen ilaa iyo 5 ballan ayuu Roble la galay Xasan Sheekh oo uu sheegay inuu u fulin doono haddii uu ku fariisto kursiga looga arrimiyo Soomaaliya ee Villa Soomaaliya qodobka koowaad ayaa ahaa in dowladda Imaaraadka loo sii daayo lacagteedii lagana raali geliyo dhibaatadii loo geystay sida iyagu u arkeen maadaama nisa ay qabatay kal hore lacag si qalad ah ay Imaaraadka u keeneen Muqdisho qodobada kale ee labada oday ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in Kenya jaadkeeda loo sii daayo si shuruud la'aan ah suuq fara badan oo ganacsi oo jaad ahna halkaas uu ka soo baxo lacagaha ka soo baxana ay kala qaybsadaan Roble iyo wasiirka amniga 30 milyan haysta in la siiyo safiirada 3 wadan oo kamid ah kuwa ugu waaweyn sida in safiir laga dhigo wasiir jaamac oo saaxiib dawla ah Roble iyo wasiirkii waxbarashada Carab oo saaxiib dawla ah isna Roble kuwaas oo wasiir loogu ballan qaaday in al-cadaala laga dhigo wasiir ama wasiir ku xigeen sidoo kalena mashruucyo fara badan loo saxiixo Roble laakiin Xasan Sheekh ayaa ballanqaadyadas ka fuliyay laba kaliya isagoo 3dii kalena ku booday Roble taasoo keentay in markan Xasan Sheekh uu bedelasho weyn u keenay saaxiibadiisa siyaasadda ee la soo halgamay kuwaasoo sabab u ahaa in xilkan uu qabto lama oga talaabada ay qaadi doonaan laakiin waxa lagu kala bixi doonaa markii uu ra'iisul wasaare Xamse soo magacaabo wasiirada cusub iyo sida uu soo qoondeeyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale saaxiibadiisii midowga musharaxiinta wajiga ka dadbanaya si aysan qayb uga noqon talada dalka lugna aysan ugu yeelan xukuumadda cusub ee la soo dhisayo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa safaradiisa ugu faraha badnaa waqtigan bixinaya maadaama uusan dalka joogi karin oo degdeg ay ula kulmayaan Villa Soomaaliyana ay ugu tagayaan sidoo kalena ay kala hadlayaan arrimaha ay doonayaan siyaasiyiintii la soo dhabar adeegay laakiin Xasan Sheekh ayaa isku dayaya in marba wadan uu aado inta xukuumadda cusub laga soo dhisayo isagoo qadka taleefanka ka hagaya ra'iisul wasaare Xamse oo waqtigan waji kale la soo baxay sheegana in go'aankiisa uu ku magacaabi doono wasiirada cusub waan arki doonaa xogta arrimahaas ku soo kordha iyo safarkii Xasan Sheekh Maxamuud oo baaqda go'aanka ay qaadatay Itoobiya iyo halka dowladda Soomaaliya ay ku dambeyso halkan waa dhanka rukumisha aduushid warkii ugu dambeeyay xaaladda dalka oo xaqiiqada ku saleysan oo ku maasan tahay la socodka warkan u diyaar garow warka xiga oo aan idinku soo gudbin doono dhacdooyinka waqtigaas taagan